looga hadlayo amniga iyo wada shaqaynta maamul goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe ayaa maanta ka furmay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda ugu sareysa dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida uu tilmaamayo agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo saxaafadda la hadlay. maanta waxaa ka furmay xarunta Villa Soomaaliya madaxtooyada shirka golaha amniga qaranka oo uu shir gudoominayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayna ka qayb galayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada saraakiisha ciidamada wasiirro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo dhammaan xubno ka ah golaha amniga qaranka. shirkan wuxuu daba socdaa shir bartamihii bishii Abriil lagu qabtay Villa Soomaaliya oo looga heshiiyey hanaanka wada shaqayneed ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada gaar ahaanna lagu aasaasay golaha amniga qaranka oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed yeelan doona. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaa dhinaca kale ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlayo isagoo sheegay inay ugu horeeyaan sugidda amniga gaar ahaan sidii dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyadu ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. waxyaabaha ugu waaweyn ee ajandayaasha horyaalla shirkan waxaa ka mid ah sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawladda federaalka ah, dardargelinta howlaha amniga ee dalka ka socda oo ugu horeyso la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee argagixisada ah ee maalin walba doonaya inay dadkeena xasuuqaan, carruurteena iyo haweenkeena laayaan, dadkeennana dib u celiyaan oo ka hor istaagaan horumarka. astaanta dawladdan oo ah nabad iyo nolol waxaa ka go'an in la soo celiyo amniga guud ee dalka, in dadka Soomaaliyeed loo abuuro nolol wanaagsan oo ay la jaan qaadaan la mid noqdaan sida shucuubta kale iyo dadyooga kale ay u nool yihiin. shirkan waxaa ka soo bixi doona habraac iyo wada shaqayn buuxda, waxaana sidoo kale ka soo bixi doona hanaanka ay u wada shaqaynayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo in la joogteeyo shirkan oo mar walba waxyaabaha naga khaldamay iyo waxyaabaha noo saxmay iyo waxyaabaha noo hagaagay oo ugu horeysa dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo laamaha kale ee amniga in laga heshiiyo. shirkan oo socon doona muddo 2 casho ah ayaa lagu wadaa gabagabadiisa inay ka soo baxaan warmurtiyeed ku saabsan waxyaabaha ay madaxdu isku afgartaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.